maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya ayaa haatan ku dhawaaqay in qofkii soo sheega baabuur qarax lagu soo diyaariyay islamarkaana la rabo in lagu galaafto dadka shacabka ee masaakiinta inuu sii doono lacag ka badan 100,000 oo dollar. hadalkani madaxweynaha ayaa ka sheegay isbitaalka weyn ee madiina xilli uu caawa booqanayay qaar ka tirsan dhaawacyada dadka ee maanta uu galaaftay qaraxii lagu qarxiyey suuqa ee ku yaala degmada wadajir. madaxweynaha ayaa sheegay qofkii soo sheega baabuur qarxi raba islamarkaana lasoo dhigay goob camiran ee dadka ku badan yihiin inuu sii doono 100,000 oo dollar si loo yareeyo qaraxyadaani. hadalkani madaxweynaha ayaa imaanayo xilli maanta qarax xoogan oo ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo galaftay in ka badan 30 qofood halka tiro kale uu ku dhaawacmay. hadalkani caawa kasoo yeeray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa imaanayo xilligii uu ku jiro ololaha doorashada oo hadalkani oo lamid ah uu sheegay, balse la arki doonay wixii kusoo kordha abaalmarintani uu caawa mar labaad ka dhawaajiyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo. inkastoo kooxda shabaab ay weli ku goodinayso inay wadi doonto qaraxyada iyo weerarada ay la beegsanayso dowladda soomaaliya iyo ciidamada nabad ilaalinta ee amisom. wixii kusoo kordha wararkeena dambe ayaad kala socotaa, balse subscribe si aa u hesho xoogo kala duwan.